Soomaali ma wada ahay ogow ilmaha anigu aan dhalo markaa waay uusan Soomaali u noqonayn ani haddaan cunug Jabaanees dhal wuxuu xaq u leeyahay in aan jinsiyadayda u qaato السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحمد ربيرتو إي برنامج كأني كساب سنة يا موادين صومال نقون كرا هذا برنامج كأنه برنامج تحنقة أو صعون دونو اللي أنك جارنو والجيدة إنه حيتاي والجيدة إنه ما أنا إن باسبور صومال رادنو هينو والجيدة إنه حيتاي جودة الصومالي حقوق المحوهلي بس هذا بو حاجة كل سؤال بقول لو يلحدن كي sharci ka jira Soomaaliya ayaa wili socda oo ah wiilka Soomaaliga haduu gabar ajnabi guursado caruus waa Soomaali gabadha Soomaali markay guursato nin ajnabi ah caruurta Soomaali ma ahan waa sharci laga soo tagay Soomaali wili waxa ka socda sharcigii 1962 iyo wiliba dastuurka qabri qoraalka wiliisa dhamaaneen gabadha Soomaali xuquuqdeeda maxay u heli weysay هذا ما أنت برنامج كنا وحن كسر مرتقدني أنا كورس دونا أخوني هانو وحجرت كل دوان كل نول ذلك تلياني يولي با دبديسة مركوران كبلا بنو تطرس خديجة محمد علي يكونول مقال تورونتو وذلك كندا تطرس سودو السلام عليكم روبرت أنا وما تسنتهاي أريدان هذا حقوقي ديسي أنيجا مرقاتي وحنا هاي أنا أقدر سنين indhahayga aan ku arkay sida gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha u dhashay oo hooyooyinka Soomaali dhaleen oo aan Talyaani dhale sida ay waalidkood u jecel yihiin sida ay uga warqabaan sida ay uga magaciista arrintan waa arrin aad muhiim u ah oo indhahayga aan ku arkay waxa waaye hooyooyinka gabdhaha qof kasta meesha ku dhalatay sharcigeeda way heshaa waan loo aqoonsadaa inay Soomaali tahay gabdhihii Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed oo ugu horeeyay dad ajnabi ay dhaleen oo Talyaani ahay waa dadka ugu jecel Soomaaliya waa dadka not only Soomaalinimo laakiin dadka qaarkoodna Islaan noqdeen oo aad iyo aad u jecel dalkooda Soomaaliya u jecel waxaan la yaabanahay annaka markaan ka soo baxnay wadanka ilmana lagu dhalay banaanka ilmahaas waa la aqoonsaday inay maaragtay wadanka yimideen ama Canadian ha noqdo ama America ha noqdo ama European ha noqdo annaka sidoo kale shuruuc waan arsiiyay waxyaab leh wadanka Soomaaliya qof ku dhalatay oo wadanka ku dhalatay waqtigaas 60 ka hor dhalatay in ay heli weyso sharci ay xuquuq u leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha hooyooyinka Soomaalida aad iyo aad ay hooyooyinkooda u jecel yihiin waa waxa rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam ka sheegay in hooyada ay muhiim tahay hooyada 3 joor ayuu sheegay inay ka muhiimsan tahay aabaha oo midda afraad uu yiri aabaha gabdhahana waxaan ku arkay arrintaas inay aad iyo aad u qadar midda kale waa aakhir markaan aad xitaa oo ilaahay diinteena waxay noo sheegaysaa in magaca hooyo la aqoonsanayo lagu aqoonsanayn aabaha marka muhiimadda ay leedahay ilaahayna nimankii naagaha waa sugan waxa kaliya ku kala duwan yihiin waa taqwada marka arrintaas aad iyo aad in loo qadariyo ayaan ka jeclaan lahayn kulligeen dadkeena arkay sida u jecelyihiin hooyooyinkooda gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed oo wiilasha Talyaaniga oo aabahood yahay hooyada Soomaali tahay marka way fiicnaan lahayd dawladda inay aad uga fikirto waa ogahay waxa bilowday aqoonsi gabdhaha Soomaaliyeed oo ku jiraan maaragtay xildhibaanada oo ku jiraan dawladda inay aad arrintaas kuwa qaarkood u qadariyaan waxaan rabaa in meesha laga sii wado in loo aqoonsado dadkan inay yihiin dadka ugu horeeyay oo ku dhashay wadanka Soomaalinimadana aad iyo aad ula qiimo badan una qadariyaan in loo aqoonsado inay Soomaali yihiin waa wax muhiim ah oo waajib ku ah Soomaaliya inay maanta aqoonsato aniga marag ayaan ahay oo loo dirsanin indhahaygan ku arkay sida u jecel yihiin Soomaaliya si u jecel yihiin hooyadood ama ha noolaat ama ha dhimatay una caawiyaan kuwa weli nool oo qaraabadooda ah marka Soomaaliya arrintaas aad looga fiirsado madaxda Soomaaliya taas aniga faraya waana ku mahadsan yahay walaalkay Robert Maxamed oo arrintan aad u qadarinayo oo uga duubay ummadda dhameed qof kasto raali ka ah in arrintan wax ka sheegto annaga dhan aan jecelnahay in arrintaas wax laga qabto waa mahadsantahay
sidoo kale waxaan la sheekaystay Sucaad Cumar Sheekh oo ku nool magaalada Torino ee dalka Talyaaniga. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وسعاد عمر الشيخ روبرتو ومحسنتها إسارقان إيو ورئيسي قانيتو يك أدمانتي إيقا قادي وحان ربا إنان أشيغو ومد صوماليات أرين أو أيامها لن إزدبي سعودي أو هوية الصوماليات شيء المها أجنبية إن أن صومالي لما لو أقوصن تاس وحانو أركا إلي كالتهاي sababtoo ah sida aan ognahay hooya lagu hubaa ilmo hooya dhihi karta ninkaasaa dhalay ama ninkaasaa dhalay haddaan raadinayno qabiil waxaan raadinayno qabiil uu yahay waxaa waaye waxa waddankeena baabi'iyey xaq ay u leeyihiin ilmaha ay hooyo Soomaaliyeed dhashay inay qaataan dhalashada Soomaalida sababtoo ah waxaad u ordaysiin oo dhan waxaa waaye inaad waddan kale tagtiin ilmo aan waddan kale ku dhashay ay qaataan dhalashadaasiito وأنا أختي سيدة مهمة صومالي كتهاي أنا جمحنا وجرنين صومالي دينا ويل إيجابربو إسكتافها وين كان أو إلهي سبحانه وتعالى سجال بلاد كأبوري المها والجوبو إن مجعيدة أي الشيء مجعيدة عودت يوقع ذكرين على شدينا إن إقاطع واي حق إليهين هو يدوى مهم gabdhaheena ilmaha kala dhalay waxa loo baahan yahay in la soo dhaweeyo oo Soomaalinimada la siiyo ay Soomaali noqdaan in aan la sikinin oo aan dhinac la dhigin oo aan la cunsuriyeenin ay xaq u leeyihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Hadda magaalada Trieste ayaa waxaan ku kulmay gudoomiyaha labaad ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Abshirow oo asina aan ka weydiiyay yaa muwaadin Soomaali naqra waxa idin horjooga malahan baarlamaanka Soomaaliya uu ka hadlay dastuurka hadda markaan ka doodeynaa xildhibaanada way soo bandhigeen xitaa mooshin soo jeedinay ku keeneen in dadka oo Talyaaniga hooyada Soomaaliyeed tahay ama abooda oo Talyaani uu yahay hooyada Soomaaliyeed tahay ama abooda Soomaaliya hooyada Talyaani tahay oo af Soomaaliya ku hadla inay xaq u leeyihiin sida muwaadin kale xaq u leeyahay tusaale adigoo kale maanta television Soomaaliya u shaqeysa universal yiraahdo af Soomaaliya ugu wareysanay marka xaqa u leeyihiin waana dawladda Soomaaliyana istaraatiijiyad iyo qorshe ugu degan in arrimahaas ay ka shaqeyso qurbo joogta Soomaali joogta oo maxaan ku raahdaa barna oo Talyaaniga barna Soomaaliya in xuquuqdooda la siiyo sida muwaadin kale oo xaq u leeyahay waana ka shaqeynayna insha Allah diyaaran u nahay. ugu dambeyntii waxaan la sheekaystay Dr. Xuseen Maxamed Cabdulle oo ah qoraa Dr. Xuseen Maxamed Cabdulle qoraa wuxuu qoray buuggan oo ah laabtaga soco dareen iyo garasho hadda buuggan ninkii akhriyo waxaa ku jira qodobo tilmaamaya yaa muwaadin naqra ama yaa siin kara muwaadinnimada haddaba Dr. Xuseen kusoo dhawow waxa ku xigo tusaale afka hooyo iyo dhulkii aabe وموضوع أن كهذا ضد أن كفرايو أو خصابسا دول كيا إسكاله أفكار يا إسكاله ما هو يا إسكاله لبدا ما سميت أباها إسكاله تصالة وحن هو تصالين أن ضد كفرا هاي الصومالية هدي أباها المها يقول شيء أو وده كله كسوجل هاي الحق ما أولاد ما درش مسين كتام مسين كرتو وموضوع أنا كان حق اللي أرنت أن بدن أن كدو ذا تاسوعي نعم ونكدو ذا متكنا خوفك أبي أجنبي هاي الصومال الله أخوصن صومال نمدا رد حكينا أنا دوحان ربع وحفورها بعيتها دود أركتي ددوينها ربع الدولة دلفت الصومالية مركز لا يحد لها إيه ودما بدن على ميدا شرعية الصومالية استعمالا دستورك جبوتها كميدا ودما العرب ودما بدن كميدا مثلا ودما قارقودنا وحي استعمالا وحال هذا فاذرلاند قارن ماذرلاند تصالي ودنك غانا waxa dhalashada bixiyo waa hooyada aabahan bixiyo sida wadamada Soomaaliya oo kale waxa la yiri aabaha dhalashada bixin karo diinta waxay leedahay fadcu li aabaahim anuga aabiha loogu yeero laakiin macnuhu maaha hooyada anuga dhaxal ma siin karto dhulku wuxuu ka dhaxeeyaa aabaha iyo hooyada artida aniga aan qaban soo jeedinay dhulka maadaama uu ka dhaxeeyo wadaninimada hooyada inay bixin karto ilmaheeda siin karto dhalasho sida aabaha u siin karo kale marka waxaan leeyahay marka qoliyaha siyaasadda ama sharci dejiyaasha qodobkaas ha ku noqdaan qalada ka jira meeshaas dib loo soo taasana qodobka xasuus ku saabsan mawduucaas
intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamijkeena xiga waxaa leedahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aabihii iyo hooyadina Soomaali ma wada ahe ogow ilmaha anigu aan dhalo marka waay uusan Soomaali u noqonayn ani haddaan cunug jabaanees dhal wuxuu xaq u leeyahay inaan ani jinsiyadayda u qaato